هذا وحلا دواعي الزنا وحقفك كبحيين وحكا سمايو وحاكو هرية كدير هذا باللي هو دوانينا هذا بدورسوني ده لا دورسنان أيوه العفة عن الزنا لا يمن أيوه waxay ka mid tahay sharcigii soo degay intii maka la joogay inta badan tashriicaadku madiinay ku soo degeen quraanka madaniga ba ka warrama quraanka makiga inta badan aqaa'ida iyo akhlaaqiyadku ka warrama mas'alada tan ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka makiga abu si xoogan uga warramaya suwar badan oo makiya ayaa Allah subhanahu wa ta'ala kaga warramaya haddaba وحولبا مثال الذي كفي عين نصوص طبضان ولا جاي بينين بدن مقشين أنا مثل ذا المامو سورة التحريم إلهي وحكا ورمي سبحانه وتعالى لحوانا أي سورة دا إلهي كورمي لحوانا الغشال لحد هوانا السورة دا تنكا ورمي سو لبوا لوانينيا هو حاصسكي نبي عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهن وعائشة هي حفصة وحوغا اسكود دايي هنا سينتو قاضي إن دمر كلا نبي كدهريان لبدا إلهي سورة وكوانينيا waxaana looga warramayaa afar dumar oo kale afarta dumar ee kale laga warramayo laba nebiyaa qaba laba nebi baa qabay laakiin waa ahlu naar baa ilaahay ku tilmaamaya waxa la tilmaamaya markaas jannada iyo wanaagu waa waxaad shaqaysataa awalana nebi baa ay qaba أما شيخ باي دالي أما النبي باي دالي أما آن دالي السلهان لقوبة بادي ما يهدار التوحيد هي طريقة صح عمري قرآن إلهي وحين وقور رميها أنبياء عرفتو دي وتاقوا يا إلومين نبي نوح علمه سوي يريا أو ديدو كبحصدي قرآن إلهي وقور رميها النبي إبراهيم وأبيه لهضا يا وديدي halkana waxa lagaga warramayaa laba dumar ah oo laba nabi qabeen oo diiday oo ahlu naar noqday وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي وحط صالح دين سينا يا بالي قال لماذا لبطوا الصالح امرأة نوح هوينيد النبي نوح قبي يا هوينيد النبي لوط قبي الله بطوا بقى بيض الراعين أهل النار كمدا مركان لبدي هوين النبي قبي عليه الصلاة والسلام وحلليه طريقة هدا مرتان أهل النار كبير سوية وحكوا إلهي تصالك سينيا لبا هوينو النبي قبل لكن أهل الجنة ووين كمدا laba haweena idan qofku waa wadadu maray ku xidhantay dhaqanka iyo suluugu la yimaada bay ku xidhantay waxa kale oo la tilmaamaya qofta dumar inay shakhsiya mustaqilla leedahay ninkeedo nabiyana inay dariiqa dalaalka carari karto ninkeedo fircawnana inay mari karto maxay dariiqa saxa وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين فرعون كي قال لماذا بدنانا إلهي وعكا ورمي وهوين ذو قبينا إسلامتي وإذا في عنك من نغطي قفك الدمر يلا بادئ إلهي وقا ورمي هوين كي نبيك يا مسلمين تكدم بيسبا ومريم مريم ابنة عمران وقبضنا قولي مقعيد قرآن كفصار ورأي مركب كوان
26 jeer baana ilaahay magaceeda qur-aanka ku sheegay waa gabadha qura loo abtiriyey iyadoo quri kuma qorray maca aabaheed baa ku qoran maryamadii ina cimraan ahayd baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maryama ibnatu cimraan maryamadii ina cimraan ahayd baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala idan waa qofka dumar ee magaceeda haddii la akhriyo ajarka la helayo ilaan qur-aanka nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaraf kastoo aad akhrido 10 xasanaat baad leedahay baa la yidhi ma idin lihi buu yidhi alif laam miim xaraf maahee alalifu xarfun wallaamu xarfun haye walmiimu xarfun maryama bnata cimraan mise ajaraad ka helaysaa magaceeda markaad akhrido waa miim ra ya magaceeda waa 4 ibna waa alif iyo ba iyo nuun iyo ta waa cimraan waa cayn iyo miim iyo ra iyo alif iyo nuun intaasoo ajaraad helaysaa magaceeda qura haddaad akhrido oo qur-aanka ku akhrido idan haweenayda tan ah haweenta qura ee magaceeda qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay waa haweenay cibaado iyo wanaag ku caanbaxday cibaado iyo wanaag ku caanbaxday halka kan sifada alla ku sifaynaya koowaad waxa weeyaan inay tahay mid dhowrsoon oo farjigeeda dhowrtay wa maryama bnata cimraan allatii axsanat farjaha baa ilaahay maryadadii ina cimraan ahayd ee dhowrsanaatay farjigeeda dhowrtay baa ilaahay leeyahay xuma ka dhowrtay dabeetana fanafakhnaa fiihi min ruuxina aanu ku afuufnay ruuxa iyaga wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin ee rumaysay ilaahay kelmadihiisii iyo kutubtiisiiba ee ka mid ahayd kuwa qaanidka ah kuwa cibaadaysta kuwa khuduuca waxay dhahdaan halka kan qadaayaadkii cibaadaadkii iyo awaamirtii rabbiya ay fulisay waxa laga soo horumariyey dhowrsanaantay dhowrsanaatay nawaahidii iyo xumaha ay ka dhowrsanaatay sida awgeed ayaa qofka dhowrsanidiisu waa diin waa waxaa ilaahay ku ammaanaya maryam qur-aan badan baa ilaahay kaga warramaya oo qur-aan madaniya iyo qur-aan makiyaba leh waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaahay markuu ka warramayay kuwa liibaanay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waaladiina hum can illagwi mucriduun waaladiina hum lizakaati faaciluun waaladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ila cala aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum gayru maluumiin faman ibtaqaa waraa'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun ilaahay markuu sheegay kuwa mu'minkee liibaanay sifaad baa lagu tilmaamay inay salaadooda ku khushuucaan inay laqwiyo xumaa ka dheeraadaan inay sakada sameeyaan sifaadka lagu sheegay waxaa ka mid ah waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun waa kuwa farjigooda dhowro baa ilaahay yidhi wixii xalaasha u ahaa mooyaane wax kale farjigooda ka dhowra markaase xagga dambe lagu tilmaamay ulaa'ika hum alwaarihuuna aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun jannada booska ugu sarreeya firdowsi waa acla aljanna jannada halka ugu sarraysa kuwa dhaxlaya sifaadka ay leeyihiin ee wanaagsan ilaahay wuxuu ka mid dhigay inay ka mid tahay xifdu lfarj ilaa la yidhi waalxaafidiina furuujahum waalxaafidaat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kuwa dhowrsoon ee farjigooda ilaaliyey iyo kuwa ilaahay xusay iyo kuwii ka horreeyey baa ilaahay wuxuu sheegay kuwa in loo diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar weyn inay aakhiro helayaan waa la faray qof kastoo mu'mini inuu farjigiisa dhowro qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim qul lilmu'miniin waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi kuwa iimaanka laga helay indhihiinna laaba dheh wayaxfaduu furuujahum farjigiinnana ilaaliya dheh dalika askaa lahum baa ilaahay yidhi sidaas baa u tahaaro badan ama u fiicnaan badan haddaba mas'alada tan
ajarka qur-aanka iyo axaadiista ay ku sheegayaan waa ajar hayru caadiya. maalan maalinta qiyaamaha waa maalin adag, waa maalin 50,000 sana ah, 50,000 sanadooda, waa maalin cadceedu dhowday, waa maalin qof waliba uu dhididayo dembigiisu intuu leekaa, waa maalin kadeed badan, intaan janno iyo naarba laysla gaadhin 50,000 sannadood ee halkan la jooga la isku xisaabinayo ayaa kadeeda. kadeedkaasi dad baa jira ka badbaada, iyagu dad baa jira kadeedkaa ka badbaada. waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa 7 ayaa maalinta qiyaama rabbi hooska geeya. waxay culammadu yidhahdaan waa carshiga hooskiisa, hadhka ama hooska carshuraxmaan. 7 qof baa iyagu maalintaa hadhsada oo ka badbaada qiyaamaha kadeedkiisa. 7dan waxaa ka mida dad acmaal waaweyn sameeyey, waxaa kaloo ka mid ah dadka dhowrsanida un ku dadaalay. dadka acmaasha waaweyn sameeyey maxaa ka mid ah? alimaamu alcaadil buu nebigu yidhi, imaam muslimka u taliyo cadaalad sameeyey, ummad ninuu cadaalad sameeyey, waa rajul cadiim. ummad dhan ninuu cadaalad sameeyey waa mansiladii cumar iyo abibakar iyo ragga ahaa ay ku tageen. wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa imaamka caadilka ah wuxuu nebigu ku xigsiiyey oo imaamkaa ku daba naban mid isagu naftiisa ka adkaado dhallinyaro ah, shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi, dhallinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaartay. in dhallinyaro ah, dhallinyaradu waa fudayd, dhallinyaronimadu waa fudayd, laakiin ninka isagoo dhallinyaro ah waayeelka noqday ee ilaahay cibaadadiisa laasimay, kaasi imaamka caadilka ah buu la koox yahay. waxaa kaloo nebigu sheegay qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay, waa nin cibaado badan oo jamacaasi aanu dhaafaynin. salafkii rag baa la sheegaa yidhaahda 40 sannadood allahu akbarta koowaad ee imaamku ima dhaafin, jamaco qura maaha, waa takbiiratulixraamka. nebiguna muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha, 40 maalmood baan leeyahay, 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin. xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam 40 yowman ninka takbiiratulixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nebigu ku tilmaamaya baraa'a min annaar, baraa'a min annifaaq, waa 2 shahaado. idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay. wuxuu kaloo nebigu ku daray 2 nin oo ilaahay dartii isu jecel, wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin, laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro. waxaa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii, inuu qof jidka wanaagsan maraya. warajulaani taxaaba fi اllah, ilaahay dartii bay isu jeclaadeen, ijtamaca calayhi watafaraqa calayh. taasunbaa isu keentay ku kala tagaana. kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan. innagu kaynuu soconnaa waa kan ku xiga markaa. dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn, oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey. way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaan keligood cibaadaysta ee ooyaa, way yar yihiin. waa laga yaabaa jamacu markuu jooga imaam cod fiicana ku tukinaya inaad iska yaro khushuucdo ama ilmaysidba, laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto. warajulu ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliyan, ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin, fafaadat caynaah, indhihiisu ooyeen.
waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadka maalinta qiyaame badbaadada noocaasii helaya rajulun طلبته أو دعته امرأة ذات منصب